السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الله يدغيسanayo qaasatan Mareykanka dadka degan iyo Canada waxaan xusuusinayaa caawa waa habeen jimcaha soo galayso. habeenka jimcaha soo galayso fadaaisha ee leedahay waxaa ka mid ah in la akhriyo saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam. qof kasto intuusan seexan inuu akhriyo saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam, inkastoo sunno ay tahay in markasta la akhriyo, inkastoo sunno ay tahay in oo daqiiqad kasta aad akhriso saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam. waxaana daliil u ah xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam. Ubay ibn Kacab nabigu u yimid calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay قال لرسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم وحو كدها رسولك عليه الصلاة والسلام صحابي كان أبي بن كعب وحودا يا رسول الله رسولك إله إني أكثر الصلاة عليك أنيقا وحان بديا صليقا أنكوغس صلينا أيو دوش هذا markaasaa wuxuu yiri kam ajcalu laka as-salatu alayka, meeqa jeer ayaan kugu saliyaa marka aan kugu salinayo. waa nabiga calayhi salaam xadiis ayaa wuxuu ku yiri man salla alayya salatan wahidan sallallahu alayhi 10. qofkii nabiga ku saliya hal mar ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku saliyaa 10. marka waxaa la yiri salaada oo ilaahay subxaanahu wa tacaala addoonka uu ku saliyo waxaa loola jeedaa arraxma, naxariis uu addoonka u naxariisanayo, naxariista ilaahaad helaysaa, wax ku dhibayo o dhan ilaahay uu kaa ilaalinayaa. iyo waxaa lagu fasiray waridwaan, ilaahay raali uu kaa noqonayaa. nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay ayaa ku saliya ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala annabiy يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إلهي ملائكتي سوحي كسليا النبي مركز إلهي وحو أمري ضدك مؤمنين تإني رسولك كسليان. صلاة الله على النبي عليه الصلاة والسلام صلي النبي الغسلي إلهي وكسلي وحاليري والرحمة والرضوان إلهي ونحريست رسولك رالين وكنغضو. صلاة وملائكتي كسلي سو النبي عليه السلام حلو فسري الدعاء والاستغفار. دعاء يوم عرقتي يدم بداف أنا رسولك الدم بملهن، لكن دعاء يالغو فسري ملائكته مركي أو رسولك يكسل نيسو. صلاة المؤمنين مركي مؤمنين يكسل نيان. النبي قد عليه الصلاة والسلام وحاويان يدنا الرحمة نحريس إلهي أن أدل بين النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم عليه وتنعم لا ينهي ilaahu u naxariiso waayo nabiga calayhi salaatu wasalaam, nabadgelyo korkiisa yeel, wax kastoo dhibaya ka ilaali intuu noolaa iyo intuu dhintayba. saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam fadaaisheedu way badan tahay. ninkii saxaabiga ahaa Ubaya wuxuu yiri yaa rasuulallah muu kugu saliyaa u dhahay hal ajcalu laka thuluth ducadeeda 3 meelood hal meel ma ka dhigaa as-salaatu calayka markaan kugu salinayo. مركز النبي وحكي عليه السلام أنا هذا خير كاسوا وناكسنت وده وإن زدت هدات كزي هذه السنة خير لك ويكون خير بدنته. مركز النبي صحابي وحكي كورن هذا النص كديه دعاء النص هذه أنكو وصليه نص الدعاء ذا كلام كديه. مركز وحكي هذا خير كاسوا وناكسنها وكما قال النبي عليه السلام وإن زدت هدات كبد السنة ويكخير بدنته. مركز وحكي يا رسول الله هذا كديه ثلثين 3 meelood 2 meel adiga kaliya kugu saliyo markaan duceysanayo. markaas wuxuu yiri in sheeta hadaad doonto saas ka dhig wa in zidta hadaad ka ziyaadiso khayr laka way ku khayr badan tahay. markaas wuxuu yiri rasuulka sallam ninkii saxaabiga wuxuu yiri yaa rasuulallah hadaan ducadeedo dhan aan ka dhigo as-salaatu alayka adiga inaan kugu saliyo oo kaliya. markaas nabiga wuxuu yiri alayhi salaam idan hada saas samayso fiir labo u sheegay. markaas wuxuu yiri tukfa همك ويغفر ذنبك.
wixii hami iyo culays ku saarnaa oo dhan waa lagaa qaadaya dembigaagana waa la dhaafaya. Allahu akbar. qiso yaroo kooban. nin ayaa madyuun ahaa, deen ayaa lagu lahaa. waxaana dhammaanteen dadkana deemaha lagu leeyahay saliga nabiga inaan badino waay calayhi salaatu wasalaam. fiiri fawaa'ida ay leedahay xadiiskii hadda oo imaam tirmidi uu wariyey oo xadiis wanaagsan ah. waxaan soo qaadanaynaa hal qiso oo keliya. nin ayaa deen fara badan lagu lahaa, dad kala duwan ayaa ku lahaa. waqtiga deenta marka la gaaray dadkii kala duwanaa ayaa u yimid. mid walba wuxuu yidhi deentaydan rabaa. ninka wuu murugooday. nin taajiru u tegey oo maalqabeen ah wuxuu dhahay 500 diinaaraan rabaa, intaasoo qof deentooda aan isaga bixin lahaa. waxaan kaa codsanayaa waqti kooban inaad isiiso, aan kugu gudi doono. ninkii wuu soo siiyey 500 diinaar. intii qof oo deen ku lahayd oo dhan uu deeminkooda wada siiyey. hal qof ayaa deen ku leh hadda. muddana waa u qabtay. muddadiyaa la soo gaaray. markii ninkii deenta lahaa u yimid wuxuu yidhi yaa haadaa, midkaan deenta igu lahayo waqtigii balanta waa la soo gaaray, deenta maysiin kartaa? ninkuu u dhaartay wallahi meel aan wax ku ogahay oo hadda aan wax kaaga heli karo ma lahan, lacagtiina ma hayo. wuxuu yidhi ninkii qaadigaan ku geenayaa maxkamadii. wuu kaxeeyey maxkamadii uu geeyey. qaadiga ninkii wuu xabisay. wuxuu yidhi xabsigaan ku dhigayaa, waa xabisan tahay maanta wixii ka dambeeyo ilaa ehelkaaga ama qaraabadaada ama saaxiibkaa cid uun deenta kaa guddo kuma sii deynayo. waayo maaragtay saaxiibu dayn ayaa wuxuu rabaa inaan ku hayo ilaa lacagtiisa aad ka siiso. markaasaa wuxuu yidhi yaa qaadiyow, waxaan kaa codsanayaa inaad ii fasaxdo oo ehelkayga, xaaskayga, caruurtayda aan ku laabto ilaa berito. markaas waa kuu soo laabanaya waxaan la soo laabtaba say xaaladdeeda u ogaadaan inaan xabis ku jiro. markaasaa wuxuu yidhi sin kugu aamini karaa inaad soo laaban doonto? markaasaa wuxuu yidhi waxaan rabaa inaad ugu aaminto hadalkan aan ku dhahayo. nin waxaan ahay muslim ah oo been aan sheegin weligiis, oo khiyaano aan samaynin. ilaahay subxaana wa tacaala wuu imaqlayaa. haddii aan soo laaban waayo ummadda nabi maxamed ka mid ma ihi. intaas keliya hadalkaasi damaanad u qaado. ninkii wuxuu yidhi waa ku aaminay, beritaan halkan kugu sugayaa. ninka kalena wuxuu yidhi anaa damaanad qaaday, berito lacagtaada u imo wuu yidhi. ama ninkiioo xabsi ku jiro. ninkii deenta lahaa waa baxay. maalinta ku xigtaa la ballamay, gurigiisu ku laabtay. xaas caqli badan ayuu qabay. sheekadii uu sheegay marka deentii in laga rabo, in xabsi la geeyey, xabsiga in la siiyey maalin in la soo daayo, beri xabsi uu aadi doono. xaaskiisa waxay tiri bacda salaat alcishaa ma seexanayno, hurdo nooma taalo. nabiga calayhi salaatu wasalaam sooma dhihin qofkii salaatu cala nabiy badiya calayhi salaatu wasalaam oo intaasoo jeer akhriya, inta ugu badan uu akhrin karo uu akhriyo. sida ninkii ducadiisoo dhan wuxuu ku dhigay saliga salaatu nabiy. markaan akhrina caaba 10,000 oo saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam intii waaga aan ka gaarayno bacda salaat alcishaa. ilaahay subxaana wa taala ma dayacayo. haween xaas caqli badan markii waa wada fadhiisteen waxay bilaabeen asalaatu cala nabiy ilaa salaada subax ay ku dhawaadeen oy daaleen oo hurdo ila dhaceen. ninkii ayaa riya arkay. wuxuu riyo ku arkay nabiga calayhi salaatu wasalaam. nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaad arkaysid waa riyaha dhihin, inkastoo riya ay tahay, laakiin waxaan rabaa waxaan ku faraa inaad samayso. waxaan rabaa berito markaad kacdo oo salaada subax aad dukato kadib inaad aado waaliga waxaa loola jeedaa governorka ama Soomaali maaragtay gudoomiyaha gobolka u tag. markaad u tagto waxaad tiraahdaa waxay soo diray nabiga calayhi salaatu wasalaam. markuu uu ku soo salaamayay xadiis ayaana dhahayo rasuulka calayhi salaam man ra'ani faqad ra'ani haqqan fa inna ash-shaytana la yatamathalu bi riwaayatan ukhra la yatakhayyalu bi. qofkii arko si dhab ah oo run ah ayuu way arkaya aakhiro. shaydaan iskuma ekaysiin karo. nabiga calayhi salaam wuxuu yidhi ninkii nabiga ayaa kusoo salaamaya calayhi salaatu wasalaam. wuxuuna ku yidhi waaligii oo gobolka haddaad tahay waxaan ku farayaa haddii oo aad ninkan deenta aad ka guddo in shafaacadeyda aad helayso maalinta qiyaamaha. waa 1. 2 xalay maya markaas ninkii wuxuu yidhi waaligii maxaa caddeynayo in nabiga aad aragtay oo hadalkaas uu ku dhahay inaan kaa gudo lacagtii deenta oo 500 diinaar ahayd, maxaa caddeynayo? markaasaa wuxuu yidhi waxaa caddeynayo nabiga calayhi salaam wuxuu yidhi hadduu ku weydiiyo maxaa caddeynaya in nabi maxamed calayhi salaam
riyo ku aragtay oo hadalkana uu ku dhahay waxaad ku tiraahdaa nabigu wuxuu yidhi alayhi salaam xalay intaadan seexan ka hor waxaad caadaysatay habeen walba inaad akhriso kun oo ah saliga nabiga calayhi wasalaam laakiin xalay markii aad saliga nabiga calayhi salaam aad akhrinaysay tiradii iska kaa khaldantay marka xalay adoo walwalsan ayaad seexatay oo tirada aan kuu dhammaystirnayn marka wuxuu ku yidhi rasuulka calayhi salaam wasalat anaa raqamkii wuu gaaray ilaahay subxaanahu watacaala ayaa kuu dhammaystiray marka haddaad rabto shafaacada nabiga calayhi salaam maalinta qiyaamaha ninkan deynta ka gud markaasaa wuxuu yidhi niyo waa ii bishaaraysa u kaadi qolkiisuu galay anaa xafiiskiisuu galay markaasaa waaligii wuxuu siiyey 500 oo deynta oo uu ka guday uu yiri bax maxkamadda geey deyntii waatan wuxuu kaloo siiyey 2500 oo diinaar oo hadiyad ah farxad darteeda nabiga calayhi wasalaam oo ugu bishaareeyay shafaacadiisa iyo iyadoo loo dhammaystiray numberkii saliga nabiga calayhi wasalaam maxkamadii uu yimid albaabka maxkamaddu soo garaacay waxaa sugaya waqtigaasi qaadigoo soo ordaya maxkamadda ka furay albaabkii furay uu ku booday uu dhudhunkaday markaasaa wuxuu in baraka badanaa tahay xali nabiga la itusiyay calayhi wasalaam wuxuu dhahay rasuulka calayhi wasalaam haddaad rabto shafaacadayda waxaan kuu sheegayaa ninkan berito kuu imaanaya markuu kuu yimaado deynta ka gud markaasaa wuxuu yidhi markuu kuu yimaado ninkii maanta deynta lahaa 500 oo diinaar waa kan sii marka ma oga waaligii maaragtay lacagtu ka soo helay isagoo marka saasay u wada hadlayaan ninkii albaabka ka soo galay deynta lahaa wuxuu dhahay u soo orday wuxuu ku soo booday ninkii uu dhunkaday raniyo nin baraka badanaa tahay xalay nabiga calayhi salaam riya ku arkay wuxuu dhahay niyo taajirka ah haddaad iska cafiso ninkaasi ilaahay xaggiisa laga cafiyay isla markaasna shafaacada nabigaad helaysaa wuxuu yidhi niyo maadaama ilaahay subxaanahu wa ta'ala xaggiisa laga cafiyay bishaaro weyna xalay la ii bishaareeyay deyntii waa kaa cafiyay 500 oo diinaarna waa hadiyad 500 qaadiga 500 oo waadigu usoo dhibay waaliga usoo dhibay inuu deynta saga bixiyo waa 1500 iyo 2500 oo hadiyad loo soo siiyay 4000 ayaa wuxuu helay markay isaga iyo xaaskiisa akhriyeen in ku dhow 10000 oo saliga nabiga calayhi wasalaam sallu ala nabiga calayhi wasalaam ku saliya waa habeen jamaaca maalin walba ku saliya rasuulku wuxuu calayhi wasalaam man salla alayhi salatan wahidan sallallahu alayhi 10 qofkii hal mar igu saliyo ilaahi subxaanahu wa ta'ala wuxuu ku saliyaa macnaa ilaahi wuxuu u naxariistaa karaali noqdaa oo culays uu ka qaadaa 10 riwaayad kalena waxay leedahay 10 dambi ayaa laga dhaafayaa 10 xasanaad ayaa loo qorayaa 10 darajana qofka koraa loo qaadayaa ka waran markaad 10 jeer rasuulku hal jeer rasuulka haddaad ku saliso hadduu ilaahay 10 jeer intaas uu kuu sameynayo 100 jeer markaad ku saliso meeqaad helaysaa waa 1000 habeen walba markaad seexato haddaad 1000 tirsato meeqaad heli faraj ayaa kuu furmayo ilaahay subxaanahu wa ta'ala marta inuu deynta kaa gudo marabta ilaahay inuu hamiga kaa qaado faraj uu kuu furo marabta albaabada khayr qoran ilaahay inuu kuu furo sallu ala nabi nabi ku saliya sallallahu alayhi wasallam wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh